السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا هدي أكو عصوبتا يوتيوب channel كيغا سبسكرايب لايك شير. برنامج كمان أوصوبنا وحونا قانا قاب كي أيا فيسبوك هذا قف أسيغو كولي قانا باسوير كذا هادان أوسان استعمالي كرين markii uu rabo inuu doono inuu isticmaalo Facebook-aada waxaa qasab ah inuu ku soo dhaco verification code telephone number-kaada ayaa waxa ku soo dhacayo 6 number 6daas number adigoona u sheegin ma isticmaali karo haddana wuu yaqaanaa Facebook-aada ciwaankaada iyo password-kaada mana gali karo sidee suurtagal miya Facebook ayaan galaa abke kadib waxaan doonaa qaybta hadda dashboard-ka markuu sidan kugu soo baxo waxaa doonaa qaybka right-ka ee saddexda calaamad waa saddexdaas calaamad dooro waxaa imaanaynaa qaybta hoos ayaan u soo wadaa waxaan dooranaa privacy and setting setting and privacy midkan ayaan dooranaa setting and privacy kadib waxaa ka sii dooranaa settings ayaan sii dooranaa marka meesha imaadid waxaan doonaa meeshaan ku qoran security and login waa qaybta hoose security and login marka meesha imaada qaybta hoose ayaan soo aadaa waa two factor authentication qaybtaani ayaa waxaan ka doonaa use two factor authentication waxaa ku soo baxay labada midkood dooro select a security method authentication app ma rabtaa oo application Facebook ama waxaa rabtaa text message aniga midka u socdo midkan waxaan dooranaa midkan text message SMS inuu koodka ii soo dhaco qofka uusan galinba Facebook continue and kadib waxaa ku soo baxay isla marka select your phone number telephone number-kayga aniga hadda isla marka waxaa ii soo muuqday Facebook-kayga telephone number-ka ugu xiran add phone number-kan waa dooran kartaa haddii telephone kale ku xirnayso waxaan doonaa aniga telephone number-kayga kadib waxaan dhahaa continue hadda waxaa ii soo dhacayo 6 numbers 6 number ayaa igu soo dhacay telephone number-kayga 6daas number ayaan sugaa asla aragna Facebook use waa kana 6da number waa 65 eber 8 25 meeshaan ayaan ku qoraa marka kadib waxaan dhahaa next step xiga ayaan gudbaa hadda waxaa laga baahan yahay Facebook-gayga password-kiisa password Facebook ayaa meeshaan ku qoraa continue hadda marka two factor authentication is on hadaad off u gahay hadda waa la on gareeyay qofka hadii u baahnaado Facebook-gayga inuu galo looma ogolaanayo haddana password-kaygu ila yaqaana ciwaankaygana uu yaqaana kadib waa kan hadda qaybtan kore two factor authentication is on hadda turning off ay marka hore hadda u baahan tahay turning off waa iska off gareey kartaa security method telephone number-ka ku soo dhaca marka sidaas qaabkaas ayaa u subsan kartaa oo kuma santa daawashada video aad daawatay hana iloobin in asxaabtaada kale la share gareysid thanks